madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku eedeeyay dowladda Iran inay ka been sheegtay taageeradii ay siisay dowladda Ruushka. Tani ayaa imaanaysa kadib markii dowladda Iran ay qiratay inay siisay dowladda Ruushka droniska dilaaga ah ee loo yaqaan kamikaze ama Shaheed 136, balse waxay sheegeen inaysan jirin caddeyn ah in Ruushku uu isticmaalay dagaalka Ukraine. laakiin reer galbeedka ayaa aaminsan in Ruushka uu isticmaalay dhismooyin muhiim ah isbuucyadii la soo dhaafay. dowladda Ruushka ayaa roobka uga dhigtay duqeymo aan kala go' lahayn magaalooyinka Ukraine, taasoo uu Ruushka ku doonayay inuu burburiyo isteeshinada korontada Ukraine. waxaa kaloo oo su'aalo ay ka yimaadeen nooca uu yahay hubka uu Ruushka ku gumaadayo magaalooyinka Ukraine. Iran oo horay isaga fogeysay in daroonkeeda loo isticmaalay duqeymahaasi ayaa ugu dambeyntii qiratay in ay Ruushka siisay cadad daroonis ah. mar warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Iran Hussein Amir Abdullahani ayaa yiri qaybta daroonka waa sax, waxaan siinay Ruushka cadad daroonis ah ka hor bilooyin dagaalka Ukraine. بخش پهپادش درست هست، ما مقدار معدودی پهپاد ماها قبل از جنگ اوکراین در Iran ayaa weli sheegato inay dhaxdhaxaad ka tahay dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya, laakiin madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa ku eedeeyay Iran inay ka been sheegeen inta ay laag tahay ka qayb qaadashada dagaalka Ukraine iyo Ruushka. waxa uu sidoo kale yiri waxaan soo ridnay ku dhawaad 10 drones maalin walba. waan hubaa in injineerada Iran ay barayaan sida loo isticmaalo droniska ciidanka Ruushka, haddana Iran si buuxda ayay uga aamusan tahay arrintaasi. daroonka hadalhaynta dhaliyay ayaa loo yaqaanaa Shaheed 136 oo loo yaqaan kamikaze drones, taasoo loogu magac daray duulayaashii Jabaaniiska ee naftoodurayaasha ahaa kuwaasoo ka qayb qaatay dagaalkii labaad ee adduunka ayagoo waxyaabaha qarxa ka soo buuxiya kadibna si toos ah ugu qarxiyo diyaaradahooda bartamaha cadowga. wadamada Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa cunaqabateyn saaray waddanka Iran, laakiin dadka garfeeya siyaasadda ayaa aaminsan in ay Iran aqbashay cunaqabateyntaasi si ay kor ugu qaadaan siyaasadooda arrimaha dibadda. dhanka kale waxaa la soo warinayaa in Ruushku ay shaqaalaysiinayso commandoskii hore ee dalka Afghanistan kuwaasoo u cararay dalka Iran kadib markii kooxda Taliban ay la wareegtay dalka Afghanistan. Associated Press ayaa sheegay in 3 ka mid ah generaalada Afghanistan ay qirteen in Ruushka uu rabo inuu shaqaalaysiiyo ku dhawaad 3,000 oo ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Afghanistan si ay uga biiraan ciidamada ajaanibta ee ka barbar dagaalanta ciidamada Ruushka, ayagoo weliba u ballan qaaday mishaar dhan $1,500 Mareykanka ah bishii. generaalka ayaa sheegay in ciidamada ay beelihiyeen dowladda Mareykanka iyo xulafadooda inaysan haysan waddo kale oo u furan oo ay ku badbaadin karaan qoysaskooda. lacagta ay bixinayso dowladda Ruushka ayaa ka caawinayso in ay ku soo kaxaystaan qoysaskooda. generaalka la hadlay The Associated Press ayaa sheegay in dowladda Ruushku u xil saartay Wagner Group qorista ciidamadaasi, balse afhayeenada Wagner Group ayaa iska fogeeyay arrinkaasi.